السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمح لي أنتي معي وأنا وسهلا. وصول هذا النظر الفيديو إن شاء الله تعالى مع أنتم أربعة تاريخ انتهى تدبي تونك بشرطنا وقد كنت سنجي تونك إن شاء الله تعالى كل فيديو opportunity كمان ومعك كمان فصولين معك كمان كلام من الصور إن شاء الله تعالى ورسول أبدا يكون اليوم يصير قد قلت haddii aan kooda goob horta aan fiirino goobta ilaa hadda san ma dhigno in short qof inuu galo oo sel ama buyer oo ka faa'iido sorry inuu ka faa'iido mooyaane ma lahan loonku wax looga tashan karo malaha qofkii eridan kale kasoo galo 118 ilaa 119 waa goobkiisa stop losskiisa eridan keenyaqayso qofkii eridan oo kale ka gala waxaa waaye waa scalping weeyaan wixiisa waa biseelku ku qaadan doona hadduu adag insha allah war awalka haddii jaadkiisa aad fiiriso waa lasoo tasbiriyay marka waa loo dhaweeyey haddii aad fiiriso supportiga waa the same yesterday shalay markii ay soo baxay newska dollarka oo xogaa koryeera aaday goldada dhicitaankiisu kale momentumka waad aragtaa inuu soo socdo soo marka trendka uu xijiyo waxaa waaye another buy oo scalping ahmiyeen balse insha allah qiimo waxaa u maraysaa inuu hadda correction soo sameynayo ilaa inuu imaado 1212 inuu imaado suurtagal ah in uu dhamayso 1240 ilaa 1260 ilaa 1235 erida la filanayo inuu gaaro laakiin muusa gaarin 1235 waxaa laga soo celiyay 1232 so eridaas waa 25 pips camal baa ugu soo marka insha allah gobolka isagana waa sidaas oilka hadda aan fiirino insha allahu tacaala oilkan waad aragtaan in supporting uu xijiyey so marka aragtaan supporting waa uu xijiyey haddii qiimaha oo inta uu kasoo dhaco another area oo sel fiican weeyaan qiima areas resistancega ah haddii uu celiyo waa maasha allah haddii uu celin waayo inuu jibiyaa suurtagal ah ilaa 7420 inuu tagaa suurtagal ah sababtoo ah maanta waxaa ku jiro news baa ku jiro waad aragtaa one here so afar boqol buu samaystay after that waxaa waa u dhaqaaqay waxaad aragta ilaa 8 1 2 3 4 kan waa qiimihii lagu furay maalintii mandayda waad aragtaa gaabkaas gaabka uu soo buuxiyey waa u dhaqaaqay waa lasoo dhigiyey waa u dhaqaaqay hadda laakiin xalay waxaa ugu xiran qiimaha ah so marka waxaa u badanta inuu qiimaha ilaa in this area inuu tago ha gadin hana gadanin middlekan hakay haddaadan eridan hoose 71 iyo 7130 aadan ka soo gelin ha soo gadin hana gadanin so sug ilaa in this area sug news baa dollar ku jiro maanta oilka sidoo kale sug markuu ku cadaato insha allahu tacaala iska gad haddii uu jibiyana uu qiimo positive oo soo baxana gado sidaas weeyaan oilka hadduu alla eegno bound USD bound maanta waxaa u jiro CPI insha allahu tacaala inuu qiimaha in wax yar kor lagu celiyo inta la filanayo waa in yar tiradii hore ka yar haddii qiimaha uu tiradii hore tira ka yar hadday soo baxdo baan ilaa 1.3050 area insha allahu tacaala inuu dhaafo xitaa waa suurtagal in this area hadduu alla eegno insha allahu tacaala haddii qiimo positive oo soo baxana uu jibiyo waa another opportunity weeyaan balse dollarka isagana ku xiran yahay so isagana insha lagu haayo maadaama mar walba eriyada dhaxda ah ha gadin hana ka gadanin haddaan scalping ahayn meelaha ugu sareyso kasoo gasooto riskigaaga xitaa waa u yaraan karaa haddii eridan oo kale meelahan oo kale aad kasoo gasho ama meelahan stoploskaaga eridan oo kale laakiin meelahan oo kale sel haddaad ka gasho inta aad dhigato resistancega qasab weeyaan hadduusan qiimahaas wax celiya uusan lahayn inuu soo taabana
pound USD isagana waa sidaas. midka kale opportunities banaan waa pound Canadian isagana insha Allah. Canadianka waad aragtaa in kor loo wado, poundkana maalmaha hoos uu yahay. pound Canadian waad ujeedaa trendka uu soo jebiyay hadda in 2 jeer loogu yeerciya umaleysa in this area oo resistancy ah. sidoo kale maanta newska haddii uu soo baxo news negative u noqdo insha allahu tacaala in this year waxa waaye profitka koowaad weeyaan insha allahu tacaala. targetkeena koowaad pound Canadian haddii uu positive soo baxana waa muxuu ahaa qiimaha baan gelina ilaa hiya waan geli karnaa insha allahu tacaala. sorry momentumkana waad aragtaa muxuu ahay inuu ku jiro range camal waad aragtaan kaama wax yar buu soo dhacaa kor loo celiyo. soo marka isagana ilaa hadda muu caddo inkastoo momentumka markii hore uu soo jibiyey uu yahay down, balse insha allahu tacaala inuu downkiisa dhamaysto baan rajeynaa hadduu alla insha allah. waxaan kaloo fiirin doonaa pound switch isagana last week video raba aan sheegay qiimaha waad aragtaa trendka waa kasoo baxay trendkan hore maasha allah. trendkan kalena waad aragtaa inuu mar kale resistance ka dhiganayo, waad aragto rejection in meesha laga siinayo candleka. haddii hadda kor buu yaro socdaa qiimaha haddii rejection meeshaas laga soo biyo aad aragto candle oo bearish ah oo fiican oo kuu xaqiijin karo momentum baad aragto inuu down u yahay. haddii aad aragto qiimaha wax kuu xaqiijiyo down fiican ah maasha allah waad aragtaa in laga soo celinayo qiimaha sidaas oo kale waa another sell insha allahu tacaala. targetkeenana waxaa weeyaan ilaa 1 this area ilaa 1.2870 ilaa 80 weeyaan insha allah. waa 100 aan nala xisaabino ilaa 180 pips in this area insha allahu tacaala. quick euro USD isagana waad aragtaa in qiimaha uu la dhaafina yahay 1.1620 areas in la dhaafina yahay. haddaad aragto candle u dambeeyana waad aragtaa oo rejectionka 4 saac sida loo soo siiyey pin barkaas. soo marka euroda CPI baa isagana laftirkiisa u jiro insha allahu tacaala. waxa aan filanayana waxaa weeyaan in qiimaha uu say u yahay euro USD eurodaba up to here 1.1450 qiimahaasoo ku aadan 130 pips insha allahu tacaala ama up to here qiimaha markii la furo wax walba oo suurtagal sii leeda haddii uu negative u noqdo waa maasha allah waa opportunity fiican waaye. sababtoo ah haddii aad fiiriso qiimaha waxaa laga soo celiyey retracementiga uu ku aadan 0.5 1.16 124 ilaa 120 so 12 and sorry isagana waxaa laga soo celiyay 20 uusan dhaafin. so insha allah another sell euro USD sida aan qabo haddii CPI-da uu qiimaha uu negative ka dhigto. sidoo kale USD yenka haddii aad fiirisaa qiimo maasha allah waad aragtaa haddii eridan u jibin lahaa waxaa waaye waa other sell oo ku aadan 1145 ilaa 40 hadduu qiimaha si fiican usoo jibiyo maasha allah inaan ka raacno. momentumkana waad aragtaa inuu kor u noqday markaan oo celiyey supportigii qiimaha uu yahay ilaa eridan 11298 inuu maanta gaaro ah newska dollarka jiro waa arrin fiican iyadana insha allah. hagadin hana gadanin haddaadan mal hore aadan riskiga aadan soo qaadanin USD yenka. sababtoo mar walba trendka resistance ama support area markuu imaado chance c lama hubo boqolkii fig break uu samayn karaa. fig break outkaas marka stop losskaaga uu kaaga tuuri karaa meesha waayo riski badan inaad qaadato marto. waxaa kaloo qaaday sal aan galayba intoo kale waxaa dhigatay
stop losska soo marka waa lagaa tuuray haddii uu qiimaha usoo laabto lacagahana badana lacaga badan waxaa jiro ixtiraamo jaadka sida badan UN-ka oo kale iyo Euro-yinka oo kale ma ahan insha allah so have a nice maalin wacan ayaan idin rajeynayaa iyo trade fiican insha allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.